السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan isla falanqeyno lacagihii tradeka aan qaadan jiray GBP GBY sababtoo ah waxaan rabnaa maanta inaan trade ka qaato halkaas meesha haduu marayo sababtoo ah saako London waxay ku furantay markaan imaano 15 minutes markaan imaano si fiican loo arki karo markaas London waxay ku furantay zone-kan ay ahayd 8 o'clock xaggay markay ahayd 8 halkaas ay ku furantay London isla markiina waxay gaartay saaka haydi London waxay gaartay qaybtaas marka meesha u hooseysa ay tagtana saaka waxay ahayd Asian low zone-kan ay ahayd Asian low zone-kan ay ahayd marka waxa laga yaabaa in range-ga aan haysto NY waxay ku furantay NY waxay ku furantay markaan fiirino NY waxay ku furantay 1 o'clock meeshaas meesha uu joogo ay ahayd marka sareyso ku furantay qaybtan sababta markaan aan fiirisid tusaale ahaan backtesiga aan sameeyey si u badnaa labada u dhexeysa hadduu niis jirin suuqa si fiican u dhaqaaqay waayo u dambeysay ayaantan trade waxba qaadanin laakiin hadda meesha markaan soo galay halkaas meesha uu maray ayaa trade ka qaatay long position halkan u yaalo targetkeenu zaaid uu iska yahay meeshan u sareyso inuu gaari horta qaybtaan rabaa inaan target gaaro sababtoo ah 15 pip way 15 pip miyero hadii la fiiriyo laakiin markas waxa fiirinaysaa asalka weekan hoostiisa hadii aan ka dhigto 15 kale way 1 to 1 inaan hela laga yaabaa laakiin qorshiga aan u socdo waxa waaye qaybta sare qaybtaas meesha u sareysa inaan kaga haraan rabaa marka tradekan waxaan rajeynaa inuu noo noqdo tradekii oo meel fiican noo tago hadduu ilaahay idmo waxaa laga yaabaa ayaanta trade fiican waan heli jiray laakiin trade ma qaadan jirin sababtoo ah suuqa waxa iskaga jira ila meeraysa suuq maadaama uu ku jiray waan iska ilaalinay shalayna move fiican aan dhaafay markaan dib u fiiriyo tusaale ahaan shalay move-kaan aan dhaafay news soo baxay ma aqaan in waa markay furmaysaba news xun ayaa dhaqaaqay ilaa cirkaas ku shararay laakiin hadda tradekan halkaasaan trade ugu jiraa marka waxaan sugaa hadduu ilaahay idmo meeshuu ku dhamaado iyo si xaalis ay noqoto meesha ku dhamaado si xaalis noqoto kulli waa soo update garan doonaa hadduu ilaahay idmo marri inuu dheeraado maxaa lahay cashirkan duwaa mise filinkan inuu dheeraado ma rabo hadda almost hadda wuxuu ii wadaa ku dhawaad maxaa lahay 0.5 wada laakiin meesha markuu 0.5 maadaama uu wada meesha aan ku imaado waxa laga yaabaa inaan SL-ka kusoo boobsiin doono intrigana kusoo boobsiin doono suuqa ma lasku hubo maadaama ninkii Trump ahaa uu soo laabtay soo laabashadiisa shalay GJC u dhaqaaqday waa arkaysid maantana waxa laga yaabaa inuu suuq dhaqaaq kale uu sameeyo hadda kanalkii waxaan sugayaa kanalkaas tusaale ahaan kanalka ka horreeyay wuxuu ku dhaqaaqay bilaa week kanalkaas markuu bilaa week ku dhaqaaqay waxaas dhaayna trade inaan qaataa rabi laakiin bilaa week maadaama ku dhaqaaqay inuu week soo doontaa rabi weekina way dhaafay weeka markuu soo doonto si xun ayuu hadana 1 minute gudihiisa ayuu kor ugu laabtay zoonkaas ku laabtay meesha uu ku furmay ku laabtay marka makada bursin karin marka waa sugay markuu soo laabtay oo zoonkii aan rabay oo soo laabtay kadib zoonkaas aan ka qaatay hadda waxaan rabaa inaan ilaa korkaas markuu gaaro tusaale ahaan zoonka markuu gaaro inaan qaar xirto zoonkaas kale markuu gaaro inaan ka wada baxo haddii la ugu soo jeesto tusaale ahaan haddii ugu soo jeesto waxaan samayn doonaa qorshe kale inaa ku dirstid waay qorshaha kale inaa faa'iido ka raadismaan haddii kugu soo jeesto waxaa samayn kartaa tusaale ahaan meesha hadda uu joogo maadaama 15 minute kale aan ku tiri aan hadda aan trade hadda aan ku jiro aan ku manage garan karin 15 kan waxaan sugaa meesha uu ku xirmo hadduu ku xirmo all the way down hoostan waa sugi karaa ma xiri doono hadduu ku xirmo zone-kan oo meesha TB1 yaalo tusaale ahaan zone-kan hadduu ku xirmo waa sii sugi doonaa waxba asalka markii soo rari doono laakiin markuu uu xirmo markaas wax kasta waxay ku xiran yihiin 15 kale hadda furmi doono kan hadda 13 daqiiqo u dhiman hadda waxa laga yaabaa 2 daqiiqo furan yahay 2 daqiiqo hore gada u socdaa muhiim maahan marka waxaan sugaynaa 15 daqiiqo markay xiranto hadduu ku xirmo tusaale ahaan meesha uu joogo meel ka hooseyso meeshan weegan uu imaaday meel ka hooseyso hadduu ku xirmo markaas waxa laga yaabaa SL inaan soo raro aan soo dhaweeyo halfway meesha inaan ka tusaale ahaan meesha aan ku talagalay inaan qasaaro 1% inaan qasaari doono 0.5 inaan qasaaro hadduu ku xirmo meeshan calaamad buluug ii taalo tusaale ahaan meesha hadduu meel ka sareyso hadduu ku xiran SL-ka stop loss waxaan keeni doonaa gebi ahaanba meeshaan ka galay meeshaasaan keeni doonaa
waxaan sugi doonaa TB inuu noogu dhaco zoonkaas kore inuu noogu dhaco taasaan sugi doonaa. taasina waxa waaye qaybta labaad. qaybta koowaad faa'iida u socotaa suuqan waa ku talagashay inaad wax khasaartid 1%ga aad ku talagashay inaad khasaartid marka waxa laga rabaa 1%gaas inaad la socotid inaad wada khasaarin wax inaad badbaadin kartid. haddii faa'iidadaada isla markii kugu dhacana meesha u socona waxa weeye inaad faa'iido ka helo hadduu noogu dhacan okay taasna waa qof iska heli kara ma lahan. marka insha allah waxaan isku dayi doonaa hadduu ilaahay idmo 15 markuu dhamaado 15 kale suuq ku furmay ayaan fiirin doonaa hadduu ilaahay idmo. 15 minute horta waxaa ka harsan wax ka yar 20 second mar ayuu wuxuu ku dhawaaday meeshii uu ii yaal maxaa lahay TB meeshuu ii yaalay TB ko meeshuu ii yaalay laakiin week ayuu ku tagay isla markii uu soo laabtay haddana wuxuu ku soo laabtay intrigeena hadda waxaa u malaysaa inuu zoonkan ku xirmo rabo. hadda marka go'aankan qaadanaya wuxuu noqon doonaa 15kan hadda zoonkan hadduu ku xirmo 15ka kale uu aado all the way up hadda bilaa week hadduu dhaqaaqo ama hoos kasoo dhaqaaqo inaan SLkayga soo dhaweysto oo bartamaha keeno ugu yaran SLka inaan keeno week hoos inuu soo doonto ma rabo sababtoo ah weekan soo doontay haddana week labaad hadduu soo doonto week labaad hadduu soo doonto dhibkeeda leedahay marka SLka waxaan keensan doonaa halkaas meeshuu ii yaalo 747 kadib waxaan samayn doonaa TB aan sugi doonaa meeshuu la gaaro. marka insha allah kulli saasay noqon doontaa maanta tireedka haddii uu kusoo laabto zoonkii hadday ama intrigan hadduu kusoo laabto kulli hadda ma xiri doono sababtoo ah stopleska waxaan keenay meeshii aan ka galnay meel ka dhow aan keenay stopleskaas marka waxaan sugaynaa meeshuu nala gaaro iyo sida xaaladda ay noqoto. marka iska badifay stopleska ayaan iska bedelo 115 minute 5 minute ku horeeyay inuu ka saaro laga yaabaa 5 minute ku horeeyay inuu zoonka inuu imaado aan ku leh soo bala 47 okay soo bala 47 zoonkaas waay marka waxa laga yaabaa markaas inaan khasaaro laga yaabaa wax ka dhow wax ka yar 0.5 inaan khasaaro marka haddii uu soo laabto meeshaan oo TB1ka aan dhigtay zoonkan hadduu marka kusoo laabtana markaas SLka waxaan keeni doonaa gabi ahaan islan intrigan keeni doonaa markaas waxaan samayn doonaa tradekaas inaan ku kala baxno 0-0 ama inaan faa'iida ka helo meeshaan uu socday inta la gaaray 15kaas ilaa uu ka xirmaayo hadduu laakiin inta la gaarin ka hor oo iga saaro almost halkaasay ku dhamaan doontaa. marka waxaa la dhihi karaa okay maxaa u qaadan weysay markii inta halkaas maray tusaale ahaan kana ka qaado xir calaamada aan ka sekiyo sababtoo ah wuxuu isiiyey ku dhawaad 15 bib aan raadinay horta uu isiiyey 14 bib 13 bib 13 bib uu isiiyey 15 kaas ay rabay inaan ka qaato marka hadii hadaf leedahay go'aankaada maxaa waxa fiican inaad ku adkaysatid sababtoo ah stopleska 15 oo ah 15 ka yar inaad qaato ma rabin sababtoo 15 hadduu gaari lahaa markaas waa laga yaabaa inaad iska manage karay wuxuuna ku tagay si weegu ku tagay isla markiina wuu soo laabtay markuu soo laabtay all the way wuxuu tagay meesha u hooseyso meeshaas uu imaaday korkaasuu tagay kow kadib haddana hoostaasuu imaaday kan kale markuu furmay waxaan ka cabsan intaas waay kan kale markuu furmay wiigu uu soo doontay haddii aan intriga ka heli lahaa wiigaas iga saari lahaa almost wiigaas soo dooranaya badanaa 15 minute-ka wuxuu sameeyaa wiig hoos iyo wiig kore intaan 15 minute aa u jediin waa naadir 15 minute aan wiig hoos lahayn uu yaryahay kan camal 15 minute ma lahan wiig ma lahan kan camal wiig ma leh laakiin si u badan yihiin kanal kasta wuxuu leeyahay wiig hoos iyo wiig kore kan waxaan u qaadan waayay waxay ahayd wiig hoos ma lahayn sidaas darteed ma qaadanin marka 15 minute kanaan sugaynaa hadduu ilaahay maduu olway oo aad qaybtaasna waa iska manage garan doonaa haddii uu soo laabtano meeshaan keenay stopleskayga meesha stopleskayga keenay hadduu u imaadana waxay noqon doontaa inaan khasaaro 0.5 aan ugu baxo meeshaan ku talagalay inaan khasaaro 0. meeshaan ku talagalay inaan khasaaro 1% sababtoo ah 0.5 markaa xisaabino tusaalahaan hadda aan soo celiyo 1% waa haystaa ka badan waxaan khasaari lahaa laba jibaarkooda waa haystaa ku dhawaad 15 aan haystaa laakiin ma rabi inaan qaato sababtoo waxaan rabaa inuu halkaas imaado markaas halkaas imaado aan go'aan ka qaadan doonaa inta u horeyso waan iska sugi doonaa horta zoonkan ha imaado kadib waan ka sikin doonaa TB qaybtaas kore markaas aan geyn doonaa hadduu ilaahay marka insha allah 15kan wuxuu ku dhamaadaa aan arki doonaa hadduu ilaahay horta 15kii
wuxuu sameeyey meeshii aan dhigtay TB meeshii aan dhigtay horta wuu ku dhacay. waxaan sameeyey partial waa ka xirtay. haddana waxaan keensaday stoplasskayga intrigan keenay. stoplasskana intrigan keenay hadduu iga saar okay. hadduu iga saar waan kulley waxay noqon doontaa inaan faa'iido ka qaato. all the way up korkaasaa sugaa meeshuu ku dhamaato iyo si xaalad noqoto. marka haddii adiga hadaf aad leedahay suuqan qorshe kusoo talagashay oo istiraatiiji ku shaqeysa aad haysatid inaad ku celisid kadib waxaa laga yaabaa inay meel fiican inay ku tagto. haddii istiraatiiji ay fadhinin meel ku fadhinin tusaale ahaan haddii istiraatiiji meel ku fadhinin taasna dhibkeeda leedahay. marka insha allah waxaan samayn doonaa stoplasska aan iska bedelo isaka aan keeno stoplasskayga. stoplasska isaka aan keensaday. kadib waxaan sugaynaa 15ka meeshuu ku dhamaado arki doonaa. stoplasskayga waxaan keensaday intriga sidii hadday aan kuu sheegay ilaa hadda wax isbedel ma hayno. tradekii mar kor mar hoos u socda. haddii stoplaska uu ku dhaco waxay noqon doontaa inaan ku kala baxno 0-0. haddii uu korkaas aadana waxay noqon doontaa inaan faa'iidada ka qaadano oo waxaan faa'iido ka rabnay inaan ka qaadano hore ugu socno. marka waxaa laga yaabaa suuq inuu iska agajiidsan yahay maanta maadaama isniintii badanaa saas iska aad laakiin shalay isniin si fiican u dhaqaaqay. maanta talaadada waxaan isdhahay suuqa dhaqaaqi shalay oo ka falcelin doona zoonkan soo buuxin doona. hadduu zoonkan buuxin waayey waxaa macquula marka zoonkan hoos Asian low inuu soo buuxiyo. marka inta Asian low la gaarinba marka halkaas markuu imaado inuu naga saaro laga yaabaa oo aan ku kala baxno 0-0. marka waa arkaynaa wixii isbedelo iyo say noqoto. 15kan hadda waxaa ka harsan 5 minute ka harsan. 5 minute kan hadda wuu soo socdaa. hadduu 5 minute kan intaan oo 15kan dhammaanin oo intrigan imaado marka waxay noqon doontaa tradekii meesha aan ku kala baxno maanta oo markuu halkaas maraayay oo zoonkaas markuu maraayay oo 15 bip markuu maraayay inaan qaar aan ka qaatay. qaarka SL-kan waxaan keensaday intriga. stoplaskayga wuxuu ahaa 15 bip oo hoos. marka waxaa la dhihi karaa wuxuu noqday trade oo normal iska ah. laakiin DJ saacadahan waxaa laga sugayay waxay ahayd inay si fiican u dhaqaaqdo. waxaa laga yaabaa gelinka dambe inay si fiican u dhaqaaqi doonto maanta. markaan suuqa kala baxno aniga si zoonkaas kor inuu aado all the way up. markaan fiirino 1 hour markaan fiirino tusaale ahaan halkan waxaa ka arki kartaa suuq si nadiif inuu ku socdo zoonkaas inuu ku socdo oo zoonkan hoose ka imaaday ilaa xalay dhan lasoo waday kor loo soo waday ilaa xalay kor loo soo waday. jimcihii isniinta waatana isniinta meesha u hooseysa uu ka bilaabay suuq zoonkan ahaa. haddana wuxuu maraa kulley korkaas ayuu maraa saaka maruu tagay halkaas meesha u sareysay uu tagay maanta oo maanta isniinta halkaas ahayd. marka waxaa laga yaabaa in loo wado meeshii shalay in loo wado kahor hadduu naga saarana stoplaska uu nooga dhaco tradekii uu naga saaro waxay noqon doontaa inaan ku kala baxno suuq inaan ku kala baxno ay noqon doontaa. marka in stoplaska kaaga dhaco ama intriga inuu kaaga saaro ama inuu TB kugu dhaco waa intaas waay. hadda laakiin waxaan sugaynaa saddexdii qorshe aan haysanay laba ka mid ah aan sugaynaa. hal ka mid ah waa helnay stoplaska horta oo hoos oo khasaarihii ma haysano. faa'iido qaar aan ka qaadanay. hadduu nagu soo laabto oo zoonkan imaado waxay noqon doontaa inaan ku kala baxno 0-0 inaan ku kala baxno suuqa inaan eber ku kala baxno. haddii laakiin korkaas aado hadda saddexdan daqiiqo dhiman hadduu korkaas aado waxay noqon doontaa zoonkaas hadduu aado waxay noqon doontaa markaas faa'iido fiican inaan ka qaadano aanan suginba 15 minute kale. laakiin 15kan hadduu hoosaan soo aado waxay noqon doontaa inaan ku kala baxno insha allah. labadaas daqiiqo aan sugaa marka aan arko meeshuu aado iyo si xaaladu noqoto labadaas daqiiqo gudaheeda. ka waxaa malaysaa inuu meeshii kii haddaa laga soo celiyey wiigiisa korkiisa ku xirmay
kanna week hoose uu soo doonanay week kore uu doontay marka qorshahan uu ahaa meesha uu sareyso TB-han qaybta inaan ka qaadano qaybtaas kore in la gaari doono in kale wallahi waxay noqon doontaa lama oga laakiin si hadda ku socoto waxay u badan tahay in si xawli lagu gaaro qaybtaas TB hadda aan dhigtay ama in lagu soo laabto intrigan in lagu soo laabto oo laga saaro 15 minutkii hore markii horta oo asalka wuxuu noo yeelay stop losska kadib wuxuu sameeyey 15 kale wiigu soo qaatay wiig hoose iyo wiig koro marka maasha allah meesha hadduu maraay halkaas meesha uu maraa rabaa inaan ugu baxo tradeki marwe inaan sii hayo marka hadduu ilaahay idmo aniga asi GJ halkaasaan ku macasalamayn doonaa maanta waxay ahayd maalin qurux badan 26 bii baa ka helay GJ maasha allah 26 bii waa 1 to 2 meelahaas ayay ku dhowdahay waxay ahayd markii 15ka hore waxaan keenay 15ka markuu baxay asalka waxaan keenay meeshaan bartamihii 15ka kale qaybtaasaan ku xiray muhiim maaha inaad kor aado ama zoonkan aado ama meeshii aan rabay inay ku dhacdo iyo meel kale muhiim maahan waxaa rabaa go'aankayga waxaa waaye inaan halkaas ugu baxay ahayd week dheer inay kusoo doonato ma rabin marka maasha allah maanta fiican ugu shaqaysay GJ waxay noo ballama hadduu ilaahay idmo maalinta xigta sidaas iyo nabaddiino